السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحصل دب تي في maanta waxaan waraysi kooban aan ka qaadi doonaa dadka u dabaaldegaya xafladda waqooyi bari oo ka dhacaysa magaalada Edmonton garabkayga waxaa fadhiya Awdal State waxaa fadhiya Bashir iyo waxaa kale oo fadhiya Awil oo ah odayaasha magaalada markuu horeysa waxaan doonayaa inaan si guud aan dareenkiina aan u ogaano sida u aragtaa xaaladda guud ee hadda ay ku sugan tahay SSC Khartoum dabaaldegan sida u aragtaa magaalada Edmontonna sidee dareenka dadku waa sidee والله صدق ياسين إن ورتا وحان كقريب قالنا مانتا إن دبالدقة وقوي بريسنة جورده إذا إن ضد كاد مونتن رنتي ومالا سيدا وين أد لو صود ويسنة دي لصود عفيبا إن أنا وحان لها وقوي بري مانتا وحان رنكرا دولة جودة الصومالي دا مركاد يكتو كمان تقود الجويان أما أنا هذين النقطة سيدا كلواكا وجانكي سنو ميديسن يهاي the most stable state oo runtii Soomaaliyeed u taagan weeye waqtigan hadda maanta 2026 in waxa rajayna halka inuu ka sii socdo sanad guuradan ta ku xigtana si fiican loo dalbaadegno waa gobol gaar anaga dadkayga oo qoy ka soo jeeda reer Awdal State-na waxaan rabnaa inuu namataliya baan u aragnaaba maaragtay ma insha Allah Awdal State oo sugeynaa soo ma mardhow absolutely waan ku soo xignaa insha Allah soo soconaa arkamin ha ma insha Allah hay Sultan ku soo dhow dareenkaaga بسم الله السلام عليكم ورحمة الله ياسين وما حسنتاي درنكي وحويان ما مقبلك وقوي بري وما وضعير ما مولد السومالي كتير وعرضي ده كالهورة هل كان بدن بالله صومري وأنا كقوليستين إني لسان مام كبعدي وش دعي وادعين لكن إني استبشكريان مامول يويليهين ومثلها dadkii gobolka ku dhaqraa ama gobolada una taagan midnimada Soomaaliyeed marka waxaan leenahay waynaad ku faraadeegtaan wax kasto la soo maray cid kasto dhimatay hadii aad hanataan oo la hanto maamulka la socodsiiyo waa guul Soomaaliya soo hoytay way waa buundo isku xidha Soomaali weyn waxayna u taagan yihiin midnimada Soomaaliyeed waxaan leeyahay sanad guurada kale Ilaahay na gaarsiiyo barwaaqo kuwaara hana la hanto maamulku hal socodsiyo Soomaalina waxaan leeyahay meel joogto hal taageero maadaama uu yahay yaraankii xagga maamulku uu yaraa u dambeeyay uu yahay waa in la taageeraa miisaaniyadiisa dee wax lagu kabaa maamuladu ma aha inay yiraahdaan way garab taaganahay sidii tii ruushka waa inay dhaqaale ku taageeraan haddii aan la helin wax lagu wado hawsha oo iskuutifka ay ku socodsiiyaan way ku adkaanaysaa inuu sii jiro marka waxa lagu biiriyo baan qabaan dhaqaalaha dibadii gudubaa la isugu tago dawladda Soomaaliya waxa leenahay meesha waa tagteen waana taageerteen laakiin ficil loo bedelo oo budget la siiyo ay wax ku wadaan kuna soo gaadhaan maamulada kale waxaan leeyahay guul iyo hambaliyo dadkaas Soomaaliya guul bay u tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awli guul iyo hambaliyo dadka Soomaaliyeed awlo baashu waan siyaasadeen hoos baan kugu dhigi waqtigan xaadirka waxa la maqlay nuux dad yow badan oo isku dayay inay tagaan Somaliland ama ay u tagaan goonigoostadka ku biiraan oo ay ka noqdaan halganka taasna foolxumo badan iyo niyad jab badan bay keentay yaa ka mas'uul arintaas adoo hambaliyadaadina wata بسم الله حفلة إنه سجوني وإنه تبالدقينه وحوي وحفلة دي من دولة قبلاتك وغوي بريوي وحلنا هاي همبليو وإنه بقعدين هنا أحمد ياسينو يرمان محوها وحجرتك هالكن سلطانك إيو هالجماعة محوها محمد فارح halgan kan waqooyi bari wuxuu leeyahay sooyaal dheer buu leeyahay sooyaalkiisu waxa weeye wuxuu ka soo bilowdaa tii Axmed Guri wuxuu ka soo bilowdaa tii ninka la yiraahdo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu ka soo bilowdaa tii xorriyadoonkii Soomaaliyeed ee loo halgamayay
in Soomaaliya ay mid noqoto waa meeshii lagu asaasay xisbiga la yiraahdo USB magaca waxa la yiraahdaa Khaatumo 1958 baa lagu dhisay USB halkaas marka waa xudunta sida suldaanku uu sheegay dadkuna la sheego xudunta midnimada Soomaaliya marka taasaynu u xafladeynaynaa maanta taasaynu isugu nimi shacabkii u halgamay u dhintay Allah ha u naxariisto jannadii bay gelayaan dad badan oo maqaawiir ah ayaa ku dhintay oo ciidanka iyo shacabka labadaba leh waxa ka mid ahaa abwaankii jaamac kadib marka waa meesha kaliya ama deegaanka kaliya oo maanta saddexda hay-adood oo dawliga israacsan yihiin macnaha dhaqanka deegaanka Sool waa hal far weey marka Soomaali loo fiiriyo deegaamada kale maamulku waa hal far maamulka ka jira waxa weeye de wax waliba waxay leeyihiin hoos u dhacooda iyo kor u kacooda laakiin waa meesha kaliya oo hadda muuqata oo dadku isku raacsan yahay shacabku waa meesha ay raacsan yihiin marka waxaan leenahay hambalyo waqooyi bari ha jirto ha joogto dawladda Soomaaliya oo Xasan hogaamiyo wixii uu ballan qaaday oo sheegay shacabka Sool iyo Sanaag ama waqooyi bari waxay ka sugayaan ninka mas'uulka ah hadduu wax sheego sidoo u sheegay inay u baxdo weey marka mashaariicda waa in loo sii daayaa aqoonsi magaca kaliya ma Xasan warwareeg baa jira ma raba inaan hoos u dego laakiin waxa laga rabaa dawladda Xasan waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ninka la yiraahdo wasiirka gaashaandhiga Ahmed Fiqi waa ninka kaliya oo si toos ah Soomaalinimada difaaceeda uga hadlay marka ninka Soomaaliga oo wax fiican sheega inaynu sheegno taas waa qodob su'aashaadii weydiisay ma maqashay hagoog xumay yeelkadiisa wadaad xumay waa jiraa Soomaa siyaasad xumayna waa jiraa imise qof oo gobolada ka soo jeeda wali halka jira waraysi baan wadnaa u kaadi imise jira oo ka horeeyay wixii hadda tagaana wax macna ku hordeenayaan male waa dabaqoodhi baa la yiraahdaa horgal baa la yiraahdaa najaasadii Netanyahu baa lagu cashirinaya marka waqooyi bari waa xalaal waxa joogaan waa xalaal waa jamaahiir waa daraawiish waa nimanka la yiraahdo qalasyo hadda qalasyada qaar baa meelahan jooga marka Axmed Yaasiin aad baad u mahadsantahay waraysiga naga qaaday salaamu calaykum maxamed faaraxow gabadhii hadalkaaga ugu dambeeya Axmed Yaasiin at least hadalkaas run ahaantii horta cidaad la dagaalamaysa muhiim maahin waxa weeye waa ideada la dagaalamayo dagaaladani waxay la mid yihiin dagaaladii daraawiishta iyo Soomaalidu halkan ku gashay nod qofka la dagaalamaysa maaha midabkiisa iyo qofku yahay Soomaalidu noqon kara laakiin waa ideada la dagaalamaya ideadu waa colonial project kuna ma joogsanayso ilaa awood la yimaado la defeat gareeyo in anigu markii waqooyi bari 40% gobolada qoyaa baxeen in awdal state movement anaguna aan dhaqan waxaan islaa nimankan arma intay yimaadaan Soomaalida la fadhiistaan laakiin ideadu maadaama colonial project ay tahay ma joogsanayso haddana waxayba u tagtay de sahanuuniyad iyo meeshii dadkii ugu xumaa adduunyada dhiig faraha kula jiro 200,000 oo qof soo dilay bay noo keeneen marka I think waxaan anu isleeyahay ideadan in asnamtu waxay gashay meel xun oo run ahaantii cadaawada oo runtii aan cidna filayn آخرك أريانك نوع عاصنا وحوي تاريخ المال حنبي كل ماذا لكن وحنا سيبوناجا تذكر خاطمه إنه وقت وانا سن هوش عسي معني أي سوق قويين بركرون ده هنبلي عنولان هاي إن تذكر أظل وحنا له
برايس إن الله بحيوي سيدا خاتمه كما إيمان ما تقان ما أنت هو طريق المستقيم كما كنت هاجيهين لكن برايس بيبيعونه ويلال إياه قبل وصور دنتي غير أوضلنا هذي الروانين يستهانون يدك واسبحان وين دنتان وما تقانا أي برايس بحيان هديك لو حوية ما تقانا أي أول بيجودو جوني قصتي يقولوا شري هذا نسانو يد بين كوري منيس مركا وين ديارو نقولنا إن برايس بحنا أدب ما سدح ميسين waayahay waa mahadsantiin dhammaantiin barnaamijkii uu bilaaban doonaa kan hordhac buu noo ahaa xaaladda ka socota ama dabaaldega ka socda meel walbo adduunka ka mid ah oo loo dabaaldegayo waqooyi bari waxay ku tusaysaa meesha ay waqooyi bari guusha ay gaadhay taasna waa mid guul Soomaaliyeed oo idil ah marka waa nin mahad celinaa